halkani waa cirifka ugu shisheeya waqooyiga dunida waxa ku taala jasiirad go'doon ah oo uu baraf qariyay jasiiradan maalmihii la soo dhaafay waxay ahayd arinta lagu hadalhaynta badan yahay dunida oo dhan. On the heels of Trump dropping tariffs on EU countries, President Trump's push to acquire Greenland, as the Trump administration appeared to warn a military conflict between the US and a NATO ally. waa jasiiradda ugu weyn dunida cabirkeedu waa 2.1 milyan oo kiiloomitir oo laba jibaaran. Donald Trump ayaa laga fujin la'yahay tan iyo muddaxileedkiisii horeba wuxuuna doonayaa in waddo walba ha u mare uu gacanta ku dhigo jasiiradan xitaa haddii ay ka fursan weydo dagaalgelidda dalka uu xulafada leeyahay ee Denmark. haddaba maxay Maraykanka muhiim ugu tahay gacan ku dhigidda jasiiradan? muxuu yahay saldhigga lagu magacaabo isha Maraykanka ee aan seexan ee ku yaala jasiiradan? maxaa ka jira in Ruushku uu ka soo weerari karo jasiiradan dalka Maraykanka? dhammaan su'aalahan waxaynu ku qaadaa dhigi doonaa muuqaalkeennan. inta aynan u gelin ha ilaawina inaad gaarsiisaan ugu yaraan 10,000 oo like si uu u sii faafo, sidoo kalena aad subscribe dhahdaan channelkeennan. ku soo dhawow website-ka gadoy.com oo kaa caawinaya inaad rumayso riyadaada ku aadan helidda guryo bilic qurxoon aadna u tayo sareeya. gadoy.com wuxuu kaa caawinayaa inaad ka iibsatid guriga aad rabtid dalka Kenya. guryahan waxay ku yaalaan xaafadaha ugu quruxda badan caasimadda Nairobi ee dalka Kenya sida Parkland, Eastleigh, Kilimani, South Sea iyo xaafadaha kaleba. si haddaba dooqa kugu habboon aad u heshid gurigii riyadaadana aad u iibsatid, boqo website-ka gadoy.com ama la xiriir WhatsApp lambarkan ka muuqda shaashadda. si aynu u fahanno sababta ka dambaysa baahida xooggan ee Trump uu u qabo jasiiradan Greenland, waa inaynu dib ugu noqonno taariikhda wax yar. rabitaanka Maraykanka ee ku aadan gacan ku dhigidda ama iibsashada Greenland waa riyo fac weyn oo ka guuxaysay maskaxda madaxweyne kasta oo Maraykanka soo maray. fikraddan waxa markii ugu horeysay la soo bandhigay sanadkii 1867 xilligii uu xoghayaha arrimaha dibadda ahaa ninkan oo la oran jiray William Seward, oo ahaa mid ka mid ah siyaasiyiintii ugu aragtida dheeraa Maraykanka. waana isla ninkii ka iibsaday Ruushka dhulka Alaska oo uu xilligaas Maraykanku ku iibsaday lacag dhan 7.2 milyan oo dollar oo kaliya. xilligaas dadkii dhaliilayay ninkan waxay ku naanayseen ama u bixiyeen heshiiskaas doqonnimadii Seward, iyagoo u haystay inuu iibsaday dhul aan wax faa'iido ah lahayn. balse waqti yar kadib waxaa caddaatay inuu ahaa mid ka mid ah heshiisyadii ugu guusha badnaa taariikhda Maraykanka. Seward xilligaas uu ahaa xoghayaha arrimaha dibadda ayuu Maraykanka ku khasbay in wadaxaajoodyo lala galo Denmark. waa la wada fadhiistay miiska, laakiin wadaxaajoodyadaas way fashilmeen. Denmarkna way ka biyadiiday dalabkii Maraykanka. iskudaygii labaad wuxuu dhacay dagaalkii labaad ee adduunka kadib, gaar ahaan sanadkii 1946 xilli uu Maraykanku ka soo baxay dagaalkaas isagoo oo guulaystay, isla markaana uu dib u qaabeynayay khariidaddii dunida. waxaana xilligan madaxweyne ahaa Harry Truman. Maraykanka ayaa Denmark u bandhigay 100 milyan oo dollar. wuxuu u raaciyey inaysan kaash ku siinayn, balse ay dahab ahaan u siinayaan, taasoo u dhignayd ku dhowaad 44 tan oo dahab ah marka la eego qiimihii dahabka ee waqtigaas, noqonaysana xilligan dhaqaale gaaraya 6.3 bilyan oo dollar. marka loo eego qiimaha dahabka ee maanta, waxay ahayd lacag aad u badan marka loo eego jasiirad baraf ah oo haddana cidlo ah. balse Denmark markale way diiday dalabkan, wayna ku gacan adeegtay jasiiraddeedan. haddaba waxaa imaanaysa su'aal muhiim ah oo ah, muxuu Maraykanku u rabay Greenland waqtigaas? sababtu waa isla tan uu maanta u raadinayo, waana goobta juqraafiyeed ee ay dhacdo. intii lagu jiray dagaalkii qaboobaa, Greenland waxay ahayd khadka difaac ee ugu horeeya ee Maraykanku uu kaga hortagi karay weerar gantaallo nukliyar ah oo uga yimaada midowgii Sovyeetka, maadaama jidka ugu gaaban ee isku xira Moscow iyo Washington uu si toos ah uga gudbo cirifka waqooyi dul marana jasiiradan Greenland. kadib labadan iskuday ee fashilmay ee uu Maraykanku ku doonayay inuu ku iibsado jasiiradan, waxaa dhacday in siyaasiyiintii Maraykanku ay faraha ka qaadeen, wuxuuna noqday mawduuca jasiiradan mid muddo ka baxa saaxadda siyaasadeed ee Maraykanka ilaa uu Donald Trump dib u soo nooleeyey sanadkii 2019. Trump xilligaas wuxuu ku tilmaamay Greenland heshiis ballaaran oo uu Maraykanka gacanta ugu soo gelin karo hanti maguurto ah. wuxuu sheegay in istiraatiiji ahaan ay Greenland faa'iido ugu tahay Maraykanka, isla markaana Denmark haddii ay ogolaato iibinta jasiiradan uu ka degi doono culays dhaqaale oo uga imaan jiray taageerada ay taageerto jasiiradda oo Denmark
sannad walba waxay ku bixisaa jasiiraddan lacag gaaraysa 600 ilaa 700 milyan oo dollar. jawaabtii Denmark ay markaas siisay Trump waxay ahayd Greenland iib maahan. laakiin wax walba waxay isbedeleen xilli doorashadii labaad ee Trump, gaar ahaan bilowga sannadkan 2026. hadalkii Trump ayaa si gebi ahaana isku bedelay. haddii uu markii hore lahaa naga iibiyo jasiiraddan, markan wuxuuba la soo shirtagay Greenland annagaa iska leh, xoog ayaannu kula wareegaynaa. waxba sii dhiirigelisay tallaabadii ugubka ahayd ee 3 bishan Janaayo oo ku soo afduubtay madaxweynihii Venezuela Nicolas Maduro iyo xaaskiisii. Trump ayaa soo qabashada Nicolas Maduro kadib yidhi hadal u dhignaa, waxaan u baahannahay qabsashada Greenland si aan u xaqiijinno amniga qarankeenna. Denmarkna ma awoodo inay ilaaliso jasiiraddaas. hadalkan iyo dhacdooyinkan istabajoogga ah ee uu Trump sameeyey waxay Denmark markan ku rideen cabsi dhab ah, waxayna isku beddeshay hanjabaad jiritaan oo ku wajahan xubin ka tirsan gaashaanbuurta NATO. ku soo dhowow markaska Al-Xikma Online. ma doonaysaa inaad baratid quraanka iyo culumta shareecada? shalay haddii aad jaanis u weyday, baro maanta oo ku baro muddo kooban iyo hab online ah oo fudud, adigoo gurigaaga ama goobtaada shaqo jooga. markasku wuxuu ku diyaariyey maadooyin aad muhiim kugu ah oo ay ka mid yihiin quraanka kariimka, higaadda carabiga, sixidda carabka qofka horey u dhigtay quraanka, siiradda nebiga sallallahu calayhi wasallam, axaadiista nebiga, fiqiga, tafsiirka quraanka, luqadda carabiga iyo barashada qorista af Soomaaliga. haddaba wixii faahfaahin ah kala xiriir WhatsApp lambaradan ka muuqda shaashadda. tan iyo kontameeyadii, Maraykanku wuxuu horeyba u lahaa saldhig military oo aad u weyn oo ku yaala waqooyi galbeed Greenland, kaasoo loo yaqaan saldhigga hawada sare ee Bitovik. saldhiggan wuxuu hoos yimaadaa ciidanka cirka ee Maraykanka, maaha oo keliya garoon ciidan, balse waxaa lagu naanaysaa isha Maraykanka ee aan weligeed seexan, maadaama uu ku qalabaysan yahay qaar ka mid a nidaamyada raadaar ee ugu awoodda badan dunida, isla markaana uu yahay tiir muhiim u ah nidaamka digniinta hore ee gantaalada baalistiga ah ee uu leeyahay Maraykanku. gantaal kasta oo laga soo rido waqooyi kuna jihaysan Maraykanka, saldhiggan ayaa ah kan ugu horeeya ee arka. laakiin muhiimadda Greenland kuma koobna difaac oo keliya, balse sidoo kale waa furaha xakamaynta marin biyoodka u dhexeeya badweynta Atlantiga iyo badweynta waqooyi ee uu barafku qariyey. gujisiyo badeedka nukliyeerka ah ee Ruushka ayaa adeegsada marinadan si ay ugu gudbaan badweynta Atlantiga. sidaasi awgeed, cidda gacanta ku haysta Greenland waxay heli kartaa awood ay ku kormeerto kuna xakamayso marinadan badeed ee dhaca jasiiraddan wakhti kasta. si kale haddii loo dhigo, qofka maamula Greenland wuxuu noqonayaa booliiska taraafikada ah ee kormeera marinadan istaraatiijiga ah. sidoo kale, isbeddelka cimilada ee ay dunidu sanooyinkii u dambeeyey la daaladacaysay wuxuu sababayaa in barafkii yaalay cirifka waqooyi uu u dhalaalo si xawaare sare leh. Greenland oo keliya ayaa lumisa qiyaastii 30 milyan oo tan oo baraf ah saacaddiiba, taasoo ka dhigan in marin biyoodyo horey u xirnaan jiray sannadka oo dhan oo uu barafku xidhi jiray, sida marinbadeedka waqooyi galbeed iyo marinbadeedka waqooyi bari, ay furmi doonaan mar dhow, waxayna isku beddeli doonaan haddii barafkani uu dhalaalo waddooyin ganacsi oo cusub oo yarayn kara 10 kilomitir iyo toddobaadyo safar ah oo u dhexeeya Aasiya, Yurub iyo Ameerika. qofkii xakameeya Greenlandna wuxuu xakamayn doonaa albaabada laga galo waddooyinkan cusub. Maraykanku wuxuu arrintan ka eegayaa aragtida ah tartan la gelidda quwadaha waaweyn, Shiinaha iyo Ruushka. labaduba waxay si weyn u kordhinayaan joogitaankooda military iyo dhaqaale ee cirifkan waqooyi. Shiinuhu, in kasta oo uusan lahayn xeeb ku taalla cirifka waqooyi, haddana si xeeladaysan ayuu u soo galay tartanka, isagoo adeegsanaya halkudhiggiisa Silicon Road ama waddada xariirta. Ruushkuna dhinaciisa wuxuu dib u furayaa saldhigyadiisii military ee uu lahaa xilligii midowgii Sofiyeetka, wuxuuna howlgelinayaa maraakiibtiisa barafka jabiya ee ku shaqeeya tamarta nukliyeerka. marka lagu eego aragtida wasaaradda difaaca Maraykanka ee Pentagonka, haddii Shiinaha ama Ruushku ay helaan saldhig ama xitaa joogitaan kaabayaal dhaqaale ah oo ay ku yeeshaan Greenland, ha noqoto saldhig military ama xitaa dekado ganacsi oo si fudud lagu adeegsan karo ujeedooyin ciidan, waxay tallaabooyinkani noqonayaan halis istaraatiijiyadeed. maxaa yeelay waxay u oggolaanaysaa Ruushka iyo Shiinaha inay dhigaan aagagan qalab kormeer iyo nidaamyo raadaaro ah, isla markaana waxay awood u yeelanayaan inay halis geliyaan shabakadda dayax-gacmeedyada military ee Maraykanku ku tiirsan yahay, wax walbana uu ka hago, laga bilaabo hagidda gantaaladiisa ilaa iyo isgaarsiintiisa. ciidanka Maraykanku si aad ah ayuu ugu tiirsan yahay shabakaddan, waana qayb ka mid a waxa Pentagonku ugu yeero silsiladda dilka ama kill chain, taasoo ka bilaabata
ogaanshiyaha bartilmaameedka kuna dhammaata duqayntiisa iyadoo la adeegsanayo gantaallo meelo fogfog laga hago oo bartilmaameedkooda si saxan u haleela hanjabaad kasta ama carqalad walba oo lagu sameeyo shabakaddan ha noqoto weerar elektaroonig ah beegsiga dayax-gacmeedyada ama basaasidda qaabka ay isugu xidhan yihiin waxay si weyn u wiiqi kartaa waxtarka awoodda Maraykanku uu dalal badan ku cabsi geliyo waxaan oo dhanna waxay ka dhigayaan Greenland mid dhacda xudun xisaabeedka amniga qaran ee Washington haddii aynu ka nimaanno muhiimadda military ee Greenland sidoo kale waxaa jira damac kale oo gadaal ka riixaya Maraykanka waana kheyraadka dabiiciga ah ee cagaaga jasiiraddan lakabyada barafka ah ee qariyey jasiiraddan oo marmarka qaar lagu qiyaaso inay gaaraan dhumuc dhan 3 kilomitir waxaa hoostooda ku jira macdanta loo yaqaan curiyayaasha naadirka ah waa 17 curiye oo kiimiko ah oo ay ka mid yihiin curiyayaasha loo yaqaan neodymium iyo dysprosium curiyayaashan la'aantood ma jiri lahayn tiknoolajiyadda casriga ah ee aynu maanta adeegsanno taleefanka shaashadaha TV-yada marwaxadaha korontada iyo xitaa gantaalada la xago dhammaantood waxay ku tiirsan yihiin curiyayaashan haddaba waxaa xusid mudan in Shiinuhu uu gacanta ku hayo in ka badan 80% wax soo saarka iyo sifaynta curiyayaashan adduunka oo dhan taasoo siinaysa awood cadaadis oo aad u weyn oo xilliga uu doonaba uu u adeegsado Maraykanka iyo Yurub haddii Shiinuhu joojiyo dhoofintooda sida uu horeyba dhowr jeer u sameeyey warshadaha tiknoolajiyadda dunida oo dhan muddo yar ayay ku istaagi karaan oo ay shaqada ku joojin karaan kheyraadka Greenland kuma eka macdanta oo keliya sidoo kale waxaa la qiyaasaa in xeebaha Greenland ay ku jiraan kayd aad u ballaaran oo shidaal iyo gaas dabiici ah tirada saxda ah lama oga balse qiyaasaha qaarkood waxay tilmaamaan balaayiin foosto taariikh ahaan Greenland waxay ahayd isha ugu muhiimsan ee laga heli jiray macdan aad naadir u ahayd oo la oran jiray cryolite taasoo si weyn muhiim ugu ahayd soo saaridda aluminiyumka intii lagu jiray dagaalkii labaad ee adduunka macdanta cryolite meesha keliya ee laga heli jiray adduunka oo dhan waxay ahayd Greenland Maraykanka ayaana xilligaas qaatay dhammaan wax soo saarkeedii si uu ugu dhiso diyaaradihiisii dagaal ee uu ku jabiyey Jarmalka jasiiraddan waxaa ku nool qiyaastii 57,000 oo qof oo keliya intooda badanna oo dadka asalka ah ee loo yaqaan Inuit haddii aynu si kooban u eegno sida ay u nool yihiin iyo sida ay ula xiriiraan Denmark maadaama ay muhiim u tahay fahamka khilaafka weyn ee ku hareeraysan jasiiraddan Denmark waxay ahayd dal gumaysta jasiiraddan muddo ku dhow 300 oo sano sanadkii 1979 waxay yeelatay ismaamul u gaar ah sidaasi oo ay tahay haddana waxay ku sii hoos jirtay boqortooyada Denmark sanadkii 2009 awooddii u lahaa ismaamulkeedu waa la ballaariyey waxaana la siiyey baarlamaan iyo dowlad mas'uul ka ah ku dhowaada dhammaan arrimaha masiiriga ah marka laga reebo siyaasadda arrimaha dibadda iyo difaaca oo weli ay Denmark gacanta ku hayso dhaqaalaha Greenland wuxuu si weyn ugu tiirsan yahay kalluumaysiga dhaqaalaha uga soo xoroodana dabcan kuma filna waana tan keentay in qiyaastii kala bar miisaaniyadda dowladda Greenland ay ka timaado gargaar sanadle ah oo ay bixiso Denmark lacagtan la'aanteedna jasiiraddan way cayroobaysaa ama dhaqaale la'aan ayaa ku dhacaysa waana isla sababta keentay in Trump uu ku doodo inuu doonayo inuu ka qaado Denmark culayskan dhaqaale marka la eego Denmark iyo guud ahaan midowga Yurub waxay ku jiraan xaalad aad u adag Denmark waa xulafo taariikhi ah oo uu Maraykanku leeyahay isla markaana waa xubin asaasi ah oo ku jirta gaashaanbuurta NATO balse ma aqbali karto inay ka tanaasusho qayb ka mid ah madaxbannaanideeda mowqifka Maraykankuna wuxuu geliyey Denmark dhibaato jiritaan haddii cadaadiska Maraykanku uu sii socdo Denmark waxa laga yaabaa inay ku khasbanaato inay kala doorato madaxbannaanideeda iyo isbahaysigeeda amni ee ay la leedahay Maraykanka midowga Yurub wuxuu sheegay inuu taageerayo Denmark balse wuxuu qabaa walaac qoto dheer fikradda ah in xubin gaashaanbuurta NATO ka tirsan ay qaab military ahaan ah ugu hanjabto xubin kale oo isla gaashaanbuurta ka tirsan oo tallaabo u gub ah oo ku filan inay burburiso isbahaysigan Denmark dhankeeda ma aamusin oo waxay bilowday awood muujin military oo aan horey loo arag iyadoo ka fulisay Greenland tababaro military oo ballaaran oo ay ku jireen diyaarado maraakiib dagaal iyo cutubyo gaar ah sheekada Greenland waa sheeko ka weyn jasiirad yar oo uu baraf daboolay waa cashar adag oo ina baraya in adduunka ay danuhu kaxeeyaan meel kasta oo dunidan ka mid ahna waxay si lama filaan ah isugu bedeli kartaa xudun khilaaf oo caalami ah haddii ay leedahay kheyraad ama ay ku taallo goob istiraatiiji ah sidoo kale xiisaddani
waxay daha ka rogtay dilaaca qotada dheer ee ka dhex jira isbahaysiga reer galbeedka waxayna muujisay in Trump xitaa xulafadiisa ugu dhow aysan ka badbaadayn cadaadiskiisa iyo hanjabaadihiisa waxay sidoo kale muujisay in xeerarkii hore ee xiriirka caalamiga ah sida ixtiraamidda madax bannaanida dalalku aysan ahayn maanta wax shaqaynaya waana digniin cad oo ina tusinaysa sida nidaamkii caalamiga ahaa ee la yagleelay wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee adduunka uu maanta isku beddelay oo isbahaysyadii hore maahan kuwo maanta cago adag ku taagan sharciga caalamiga ahna wuxuu noqday mid gacmaha lagu sito oo sidii la doono loo xariiqdo haddaba ma laga yaabaa in Trump uu markale waalidiisan ku guulaysto oo uu qabsado jasiiradda Greenland nagula wadaag aragtidaada qaybta hoose ee komentiyada haddii uu ku qanciyey muuqaalkanna ha ilaawin inaad like inoo saartid sidoo kalena aad la wadaagtid asxaabtaada haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir oo ka mid noqo bahweynta nagu xiran mahadsanidin